dhammaan waxaan idinku salaamayaa qof masabka uu ku fadhiyo waxaan aad iyo aad u sakin gareynayaa senator Fartuun oo runtii intii naga guuxaysay dhinac walba ka taabatay senator mahadsanid marka xigta waraa ogtihiin ma idiin sheegnaahay maray baarlamaanka maalmahan marka waraa ogtihiin aan idinku celcelinaynaa cutubka koowaad qodobkiisii 3aad mabaadiida aas-aasiga farqadiisa 5aad waxaan rabnaa in loogu qoro guddiyow mal idinka tuugooyo warkaan amar waayo siday tahay u qaata haweenku waa in ay ka mid noqdaan dhammaan 3 laamood ee hay-adaha dawladda iyo guddiyada madaxa bannaan ee heer federaal heer dawlad goboleed iyo dawladaha hoose ugu yaraan 30% gaar ahaan jagooyinka la isu doorto iyo kuwa la isu magacaabo waa la yaabaysiina waxaa leedihiin gabdhaha maxaa pressure-kan tirada badan ugu wacan idinka aragnay markaadna buusaysaan oo maxaa 30 isugu koobaysaan mar aad leedihiin war heedaha 30 noo ogolaane goormee 60 iyo 70% iyo aan noo ogolaanaysiin nooma ogolidin laakiin waxa ilaahay mahadiya maanta inaan idinka baryaynin baa ilaahay mahadiya sababtoo ah intuusan dastuurka furnayn waxaan la taagneen meelaha 30% dastuurka hana loogu daro su'aalaha nagu soo noqonaya waxaa ka mid ahaa dastuuriba maahan waxaan dastuurku idinku jirin intee u wadiin berrina maanta waxaa la taagantihiin way isugu koobaysaan 30% maxaa ka badanaa heli kartiin maalin waxaad doontaan nagama gadaysaan ragow raalli ahaada maanta waa naga go'an tahay 30% haddii aan dastuurka lagu soo darin dastuurku wuxuu noqon doonaa dastuur rag leeyahay ay hal gabar gacanta u taagin haddii hadda waddanka dastuurka uusan ahayn dastuur umadeed uu noqonayo dastuur rag leeyahay oo la go'aamiyana hadda meeshaa la tagi laheedeenaa la rabaa gurbaan waxaa la yidhi markii la taago waxaa la rabaa goobtii lagu garaaci lahaa dastuur gabadhi ka maqan tahay meeshii aad gey laheedeen idinkaa la idinka rabaa aad iyo aad aa u mahadsantihiin guddiyo warkaas waa idinkaga fadhinaa haddii aad isku taragaraysaan xildhibaanada intaa la eg oo rag badanoo na taageerayna ay jiraan inaad xuquuqdeena na dugsiisaan idinkama yeelayno khaasatan guddiga dib u eegista dastuurka baarlamaanka federaalka annagaa idin soo ansixinay annagaa hawshaas idiin dirsanay inta idiin dirsataana qayb ka ahayn haddii rabitaankeena aad ku shaqayn weydaan hadda dukumiintiyada midbaa gurigiina la aadi doontaan waa mahadsantihiin